بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaasna ah duqa magaalada Muqdisho gudoomiye Madaali sidaas la eg waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha degmada Wardhigley Marwe Zainab Xabsade runtii gudoomiye Zainab iyo tiimkeeda waxa ay ka qaateen qayb aan inaba la hilmaami karaynin dhismaha wadada kasoo bilaabata jidka Sodonka oo laanta barwaaqo dhinaca ku haysa oo ilaa 250 mitir dhererkeedu ahaa wadada runtii ilaa dawladii Maxamed Siyaad Barre waxay ahayd oo loo yiqiin wadada biyo degeenka ee laanta barwaaqo runtii dhibaato badan oo dadka xaafadda degan gaar ahaan dadka deegaanka u ah jidka oo labada dhinac ka degan dhibaato badan oo markasta oo roob da'o waxay ku magac dheereed xaafadda biyo degeenka oo wasaqda ah sidaa daraadeed waxaan waqti aad u dheer gelinay oo aan isku dayay inaan ka bixiyo u go'aansaday inaan ka saaro xaafaddaas dhiiqada dadka deegaanka u ah ee guryaha kule xaafadda ama jidkaba saaran inaan abaabulo muddo 2 sano 3 sano ayay ugu qaadatay waxaa mahadcelinta keenay gudoomiyaha iyo tiimkeeda waxay aad iyo aad isugu dayeen inay igu garab istaagaan runtii gudoomiye Xiirey Saale Xiirey xogayaha degmada Ali Aadan iyo dhammaan howlwadeennada degmada Wardhigley aad baan uga mahad celinayaa runtii intii ay ugu soo caawiyeen in wadadaasi ay najaxdo shaqada xaafaddu ay isu xil saartay bacda abaabul in ay dhisaan wadada dadka nagu garab siiyey oo gudoomiye u horeyso bacda Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin si gaara waxaa igu encourage gareeyay runtii markii kadib markii caqabado badan aan kala kulmay deegaanka oo u arkayay in wadada dhismaheedu qaybo ka mid ah deegaanka uu dhib ku yahay igu caawisay inay ka dhaadhiciso ku qanciso in wadada dhismaheedu xaafadda walaalihii naga horreeyay oo hore u dhistay iyo inagoo hadda dhisayna iyo kuwa naga dambeeya oo dhisi doonaba inay wadadu maslaxad u tahay runtii arrintaa waxaa kaloon uga mahad celinayaa halkan si gaara dadka contributionka bixiyey oo igu dhiiri geliya si gaara inaana ku niyad jabin shaqada oo aan maaragtay aanan joojin oon geed gaaban iyo geed dheerba u fuulo in wadadaas ay najaxdo alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale wadadaas waa ay najaxday haddii aan gudoomiyaha degmada Wardhigley Marwe Zainab iyo tiimkeedu aanay igu garab istaagi lahayn ama xaafadda barwaaqo oo jidku marayo oo guryahooda biyaha iyo dhiiqada aan go'aansaday inay ka baxaan
aanay igu garab sii lahayn runtii waxba ma najexeen. ilaahay baan uga mahad celinaynaa. kadibna dadka ay u horeyso guddoomiyaha degmadu iyo tiimkeeda iyo dadka igu garab siiya dhammaantood, cid dhaqaale bixisay iyo cid ra'yi bixisay iyo cid maaragtay igu dhiirigelisayba aad baan uga mahad celinayaa. allah subxaanahu watacaala waxaan leeyahay miisaanka idiin saaro, miisaanka ilaahay idiin saaro subxaanahu watacaala. runtii waxaa xusid mudan dadka laanta barwaaqo degan oo u bareeray jidkan inay interlock ka dhigaan, ka baxaan dhiiqadii lagu bartay iyo magacii ugu baxay xaafadda biyo-degeenka, inay bedelaan dadka u bareeray ee xaafadda degan ayaa mudan in aan halkan ka ammaano. runtii waxaa sidaasi la eg aan halka ka xusaya guddoomiyaha warta nabadda, guddoomiye zaynab xaabsade iyo ku-xigeenkeeda saalax xiirey, xogayaha degmada cali aadan, iyo sidaasi la eg injineeradii runtii u dhabar adeegay iyadoo konturaadii aanu wada gallay oo aanu la saxiixanay ay dhammaatay sanad ka hor, u dhabar adeegay inaanay ka bixin oo jidkaa ay nala dhameeyaan, xaafadda nala hagaajiyaan. arrintaas aanu ku dhaqaaqnay haddaan nahay xaafadda barwaaqo oo dawladda nagu garab siisay, guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyaha degmaduba ay nagu garab siiyeen. runtii waa qeyb ka mid a soo nooleynta bilicda magaaladan muqdisho aanu ku noolnahay. waxaana ay mudan tahay xaafadeenu tallaabta ay qaaday in ay nagu daysadaan dhammaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada hordhigley iyo guud ahaan magaalada muqdishoba sidoo kale. waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa ugu dambeynta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo dhammaadkii jidka xafladii furitaanka nagala soo qayb galay, nana guddoonsiiyey shahaada sharaf. aad baan uga mahad celinayaa runtii. si guud iyo si gaaraba degmada hordhigley ha noolaato. guddoomiyaha degmada hordhigley mar kale waa ku ammaanaya runtii sidii ay ugu dhabar adeegtay in ay ila hirgeliso ama nala hirgeliso ka xaafad ahaan shaqada jidkaas inay dhammaato. aad baad u mahadsantihiin. salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.